ninka ku doodaya dadkaas carab bay ahaayeen salliga macnihiisa way fahameen nabiga u weydiin karaan iyagoo luqada u dhashay war ma ay weydiin salaada quraanka wuxuu waa qiimo salaata kitaabka quraanka ku soo arortay laakiin kayfiyada loo tukanaya nabiga la weydiiyay oo dadka baray tanna waa salli ducaa inay tahay wal ogyahay laakiin kayfiyada loo dhahayo loogu dhawaaqayo taasi su'aalayo ee salliga macnihiisa waa garanaya in alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم waxaan ku dhex jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam shalligiisa faa'iidooyinkii aynu soo sheegnay faa'iidada koowaad baan ku dhex jiray oo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam kama salayta ala ibrahim maxaa lagu xalinaya tashbiihaas تشبيه هوري بان uga soo waranay casharka dhaxaysan ku jiray way waxaan dhahnay wala reeba anna salaat al-hasilati al ibrahim wa rasuulullaahi ma'ahum akmal min as-salati al-hasilati lahu dunahum inay kaamilsan tahay salaada nabi maxamed u xasishay salaada al ibrahim u xasishay rasuulkuna uu kamid yahay nabiyaasha kalena kamid yihiin inay ka kaamilsan tahay mid nabiga iyo aalkiis kala u xasishay hay nabiga labada dhinac ku jira nabiga waa loo dalbay arinta cadiimka oo ah inuu fadli badan yahay al ibrahim huwa afdalu mimma al ibrahim qad'an marka arintaas marka loo dalbaya oo ah inuu nabi maxamed ka fadli badan yahay al ibrahim way horxina idan waxa muqarrif faa'idatu tashbiih wa jariyuhu ala aslihi tashbiiha sida uu yahay faa'idadiisa la arkaya iyo inuu ku wajari inuu ku socdo ala asli inuu ku socdo oo nabiga inuu ka fadli badan yahay nabiyullaahi ibrahim waa markuu nabiga iyo aalkiisu ay gaar yihiin ibrahim iyo nabiyaashii kale oo la socday aalkiisa iyo nabi maxamed ku jira dhinacan inay fadli badan tahay ساس الله صعبة وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره وأن المطلوب له ضرب الله ضربي من الصلاة بهذا اللفظ لفظ السجعة هي عدم يكون من المطلوب له كالله ضربي بغيره فإنه إذا كان المظلوم بالدعاء إنما هو مثل مشبه به وله أوفر نصيب منه مشبه به كاس أيا لم يده مركز تاسان أولا ما يصير بدن بوليه هاي أو فرض معنا وحوي مركي ونبي كتير نبي إبراهيم دلكيس كتير أيوه وفيسين هوي سار له هو حيون نقرأ من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره مشبه مركو النبي وأها وقالوا تاجين هاي بحلود البي أيها وحي كفر لبديهين وحي إبراهيم بغير كيس أي لها ينوي وانضاف إلى ذلك أنت أنا وحى قدر سمية مما له من المشبه به وحي كلها مشبه به أو إبراهيم نبي عاش الله صعده من الحصة كلها من نصيبك كلها التي لم تحصل لغير عد كان عنه حاصلين فظهر بذلك أنت وحى كم وقت من فضله وشرفه نبي فضل شرفته على إبراهيم نبي محمد نبي إبراهيم كفر لبنيه وعلى كل من آله وعلى كل من آله آل كيسا وكفر لبنيه وفيهم النبيون ما هو اللائق به واي وحي سجع عنبه تاسع صباح فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به وصارت هذه الصلاة وحي نقطي دالة على هذا التفضيل وتابعة له تفضيل داس فضل قام بدكم تصيصه وتابعة له مثل راعي يسوي وهي من موجباته وحيابه واجب سري وهي مقتضياته وحيابه كاني فصلى الله إليه ونحرسه عليه نبي وعلى آل كسر الله ونحرسه وسلمه النبي قال تسليما كثيرا النبي قال فربضا وجزاه عنا إليه أبالها نجا أبال جيو أفضل ما جزى نبيا عن أمتي نبي أنتم مدس إلهي وجزي يعني فضل أولا كان الدين سبب النوع النبي محمد قف كستو دنيا كسو إسلامه وعمل خير سمية والدين نحجله وخير نحجله نبي محمد إن لا يقبل له قراية هم لا ينسى يعني وحوي هذا قف يعني قف خير كأوية هذا خير كقاته adiguna in inta qofkana khayrkiisa laga nusqaamin maayo adigana khayrkii qofka aad ugu yartay baad helaysaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi intii dunida ummadiisa oo dhan marka ummadaas oo dhan fadligaas uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waay marka asaas uu leeyahay wajazaahu anna afdala ma jazaa nabiyan an ummati ilaahi nabigeena abaalkiisa hamari iyo fadligiisa hasiyo sidoo nabi ummadiisa uga maartay uga abaal mariyay way اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد صليوا بكل شيء وايا هذا الكاس مركيري هذا الكلام مهم كسو وحوي لبدا أرمود وي أرنتا دمنا وحوي نبي إنه لنا عنا كشر إن عنا كشره تاسان عاد لوجا فهمايا تاسان عاد لوجا فهمايا وي فائدة الله بعد وماشي أنا جالي واحد الفائدة الثانية ويرى القارئ الكريم
qofka qaariga ah oo wanaagsani wuxuu arkayaa anna haadi siiqooyinkaasi calaa ikhtilaafi anwaaciha noocyashooda iyagoo iskhilaafsan fiiha kullaha asalaatu calaa aali muxamed nabiy sal alay wasalam dhammaantood waxaa ku jira salliga lagu salleeya nabiga aalkiisii wa aswaajihi xaasaskiisii wa duriyati macahu wa duriyati caruurtiisii macahu maca nabiy sal alay wasalam nabiga maciisa baa lagula sallinaya oo waxaa lagu daraya xaasaskiisii aalkiisii baa lagu daraya xaasaskiisii baa lagu daraya caruurtiisii baa lagu daraya falidaalika falaysa min as-sunnah falidaalika sidaa darteed falaysa min as-sunnah sunnaha ka mid maaha walaa yakuunu man ahaanaya munfidan qof fuliyey للأمر النبوي أمر النبوي جاها من اقتصر قف كسو قابسد على قوله اللهم صل على محمد أنت هذا كسو قابسد هذا آل كي وجد بين سلي ما هذا لما يشتري سلي وكاكل الدمية سلي وكاكل الدمية روايات كسو واحد يكون دريس مركي النبي قد عايز الآخرين آل كي سيا لوجد باي عروتي دريد وحتى لوجد باي رواية حديث كوي دعاء واي فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا قفل ينقل ما الأمر النبوي من اقتصر على قول اللهم صل على محمد فحسب انت كلي قف قابصده بل لا بد وحا لغا مارمانا من الاثيان قف كانوا لي يمادو بإحدى هذه سيقوين كان مid kamid aan soo maray kaamilatan dhamaystiran kama jaat عنه سي نبي uga timi sallallahu alayhi wasallam لا فرق في ذلك بفرق ما كان لها بين التشهد الأول التحيات كهره والآخر التشهد الآخر يعني التحيات كدمه mid walba salliga waa laga rabaa وهو النص الإمام الشافعي في الأم كتاب كيس كاب إمام الشافعي نص كجدي لبدأ تحيات بين وصلي وكتشره لكن متك الدمولة وارجني فقال وحي الشافعي والتشهد في الأولى والتشهد التحياتكم في الأولى من الظهر والثانية لفظ واحد اسكو لفظ وي لا يختلف فما اسخلاف أيه ومعنى قولي التشهد عن لا هنا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعنو هذا تشهدك وتشهدك يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي أحدهم عن الآخرين بالموت متك كلا كم توكره هنا تنانو تحيات آخرين ما يسلق النبي أنا وقبح حياة بوس تحيات كنيجيا هنا تنانو تحيات كلي أنا خليه يسلق النبي كتجيا سوكا قبل ما يسلم هذا سراعي بكلي من دم متك كلا بوس يسمى مبوي حنكروي تاسوي لا والله ويناد لا تماد داوي لا يجزيه لا يكفيه أحدهم عن الآخرين وين مد متك لا والله الصدروي واي ما كان شيخ وحو سوق هذا يا dadka hadda qarnigan joogu leeyahay ajaayib baa lagu arkay ninbaa wuxuu ku doodayaa nabiga aalkiisa salliga in lagu daro ma banaana dadka quraanka kaliya intay qaateen quraaniyiinta la yiraahdo quraan kaliya intay qaateen xadiis iska daayeen markaasuu qoranayaa ninbaa wuxuu leeyahay nabiga ilaahay markuu leeyahay sallu alayhi wa sallimu tasliiman marka aayada quraanka markii leeyahay inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuha alladhina aamanu sallu alayhi wa sallimu tasliiman nabiga kaliya laga hadlay aal meesha lagu sheegin bi saadaraade aalka lagu daray waxa soo shilinta siibi waxba kama jiraan arrintaas uu sheekhu ka dagaalamaya dadka xadiiska hadiye jeer xadiis aan dan kala hayno yira quraaniyaan banahay wayna min ajaayib hada zaman sheekh hada kiisa u fiirso zaman kan ajaayibta waxa kamid ah wa min al fawda al ilmiya fawdada cilmiga ah qofka iska sheeganay wuxuu oranayaa qofkaas waxa ay banaa waxa ina ku sameeyay waxa diin oo wahay waaye wa min al fawda al ilmiya fawdada cilmiga ah fi waxa ku sugan an yajru'a inuu ku dhiirado jaraa'adu waa dhiiranaan بعض الناس dadka qaarkood inay ku dhiiradaan وهو الأستاذ محمد إسعاف أنا شاشيبي شيخ أسوي في كتابه الإسلام الصحيح أي كتاب كسوه مقعد دري شيخ أنا شاشيبي الإيراد على إنكار الصلاة على الآل وإنكري إن لو صلي على الآل في صلاة عليه صلى الله عليه وسلم مركن النبي قال صلي إن آل كيسنا صلي قال قدره على الرغم يضع السند الله يريد ذلك أنت أين سؤال في الصحيحين البخاري مسلم كتاب الله وغيرهم أي كتب تكلم عن جمع من الصحابة جماعة من الصحابة دي منهم واحد من كعب بن العجرة وأبو محمد الساعدي وأبو سعيد الخدري ومسعود أبو مسعود الأنصاري أبو مسعود البدري نوالي هذا الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله عشرة كتر يسوي 10 مبشرين وفي أحاديث وحكسر أنهم يو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يوديا كيف نصلي عليك السلام وكوصلنا ساسي النبي ويديه وايه فعلمهم النبي بري صلى الله عليه وسلم هذه سيقوين كان soo maray buu baray hada ragaan uu tirinay waa rag xadiisi inoo ma sheegin sanadkoodii saliyada hadda saligan soo maray iyo rag hijaashi warisay saxaabadii warisay waxa inoo ma sheegin waaye laakiin soo gaabsanay haddu qaar kamid ah tilmaamay markii wuxuu leeyahay ragaasaa wariyay kayfa nusalla alayka see kugu salinaa yiraahdeen meeshaan ina fahamtid waxa hadalka waxa lagu fahmay wuxuu leeyahay miyay weydiiyeen nabiga ninka wuxuu ku doodayaa dadkaas carab bay ahaayeen salliga macnihiisa way fahmayeen nabi u weydiin karaan iyagoo luqad u dhashay war ma ay weydiin salaada quraanka wuxuu waa qiimo salaata kitaabka quraanka ku soo arortay laakiin kayfiyada loo tukanaya nabiga la weydiiyay oo dadka baray tanna waa salli
ducaa inay tahay waa la ogyahay laakiin kayfiyada loo dhahayo loogu dhawaaqayo taasay su'aalayeen ee salliga macnihiisa waa garanaya kayfiyada loo akhrinayo qaabka la isugu xijinayo qaabkaas nidaamkaas weydiiyeen mooyaane waa is dhakariya buu leeyahay saasuu ka dagaalamaya sheekhu waayahay كتبتها مركز علماء الصور الصحابة وفي أحاديثهم أحاديث أنهم يجوا سألون النبي أن كيف نصلي على كيف كسلنا فعلمهم النبي وحبر هذه السياق وحجته نك الشيخ نشاشيب حجتي سوى في الإنكار حديث إنكاره قال كأن لو صليه أن الله إليه تعالى كره لم يتركوا مشيئا في قول كيسي صلوا عليه وسلموا تسليما آية القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا نبي عيد كلا لو ملا مانين قال كيسنا لما شيئا حاسس كيسي عروتنا لما شيئا نبي كري آية لو شيئا halkaas isku dhashay qofkaas sheekhaas thumma ankara waa inkiray wabaalaga waa ku xeel dheeraaday fil inkari an yakuna inuu yiraahdo an yakuna saxaab wuxuu kale ku xeel dheeraaday oo wabaalaga fil inkari inkiridu inkiriyay alka in lagu saliyo ayuu ku sii xeel dheeraaday maxaa uu xeel dheeraaday ka dhigay thumma ankara wabaalaga fil inkari an yakuna saxaabadu inay ahaadaan qad saaluhu ذلك السؤال صلى الله عليه وسلم سؤال شائني ويدين لأن الصلاة كلمة الصلاة معروفة المعنى معنى هذا ولا يغان عندهم صحابة أكتوضة وهو الدعاء دعوي يقول سيدا أو قرنين محيك ويدين النبي فكيف يسألونه سيدا بيويدين شيء قرنين محيك النبي ويدين قبل وحال ويدين وحي على قرنين وحي الألباني وهذه مقالضة مكشوفة ثاني وحوي وقلب مقالضة أرضي مكشوفة اسكده مارت اسك عضوي دبل قاعدين هي مقالضة مكشوفة قف كستا غران كرو مكشوف waxa way wax dadku waxa la transparent way laana su'aashoodu lam yakun ma ahayn ala macna salaati alayhi kelmadda salaad nabiga lagu sallinay macnaheedu ma ahayn hatta yurd ma dhakaro illa hatta yurd ma dhakaro illa uu ka radiyo wax uu sheegayo wayna kana an kayfiyatu salaati alayhi kayfiyada loogu salliyo weydiin ma ahay salaada salliga macnihiisa waa garanay كما جاء في جميع الروايات لما توصل كتمي على ما سبقت الإشارة إليه نوغو سهر من الإشارة حديثا سو أرغني وحينئذ وقتها فلا قرابة وحلا لا يابا معها لأنهم سألوه وحي ويدين عن كيفية الشرعية كيفية الشرعية لا يمكنهم أن ينصروا قولهم معرفة أين يقرطان إلا من طريق شارع حق إلهي شارع الله شارع حق يسمويان إيه النبي قال شارع وهاي وحي النبي إلهي أسول ليبي وكيناي شارع الحكيم حكمة الله العليم يا الله سبحانه وتعالى وهذا كاسرة ما كما لو سألوه لم يتهيبين هذي ويدين لهاين عن كيفية الصلاة المفروضة صلاة الفرض يلي كيفية ذا بمثل قوله تعالى واقيموا الصلاة أي قرآن كسر أرورتي فإن ما يقرن المركة كيفية الصلاة اللي تقرن معي لكن الصلاة دي ويقرن معنا هذه فإن معرفتهم قرشوضة لأصل معنى الصلاة في اللغة لا يغنيهم كجماعة في عن السؤال إنه ويديان عن كيفيتها الشرعية كيفية الشرعية واللي تكون صلاة دي أركانتي وحدي وهذا بين لا يخفى تاس وعضها ما قرصونا وأما حجة المشار إليها حجة سوى إشارة فلا شيء وح معنى ماله ذلك لأنهم من المعلوم وحلا يقال عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو المبين كي عديني لكلام رب العالمين عالمين رب جد كلام كي عديني كما قال تعالى الله وير سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر قرآن ما كوجو دجني لتبين للناس دتك إن عديس ما نزل إليهم وحي لو سو دجي فقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه سيد الله وصل النبي وعدي وفيها وحا كجرا ذكر الآل با كجرا فوجب وحا واجب قبول ذلك إن لقى قبل منه النبي لقى قاته لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وحي النبي إن لين قاته ساسو كلوي النبي إنه كيري وأنا لقادنا ولا قادني وحي النبي كيري على آل النبي آل كيس إن لقى صلينا يا أزواج ذريتي سنة النبي كيري وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور حديث صحيح أو مشهور كان النبي كيري ألا إني أوتيت القرآن كان ليسي ومثله معه استوى كلام من عيسى أوي وحديث الحكمة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واي wuxuu ku soo saaray xadiiska mishkaat al-masaabih ku soo saaray waay walayta ash-shi'ri saasu sheekhu leeyahay walayta ash-shi'ri ya shi'ri walayta ash-shi'ri gabayga shalaytadiisa maada yaqulu hadalka waxa uu isticmaalay layta ash-shi'ri markii qof wax tabanayo layta ash-shi'ri yani albani ash-shi'ri gabay tirin maayo laakiin wuxuu leeyahay hadalka wuxuu u baahayaa ninkaas meesha wax ka haaneeday buu diidan yahay وليت الشعر قبل يشليتيس ماذا يقول الشاشيبي شاشيبي محو ليهي ومن محو أوران دونا بليهي ماذا يقول محو له دون أن الشاشيبي ومن محو أوران دونا قد لا أركي يقتر إنه كنت دقمه بمهرجة كلامي هذا الكيساء مضل فنتيس مرين هبامنتيس
bahraja qof wada fiican ku socdo magaalada meeshii wadadii loo maraa ku sii taagan baad u timsatay war meesha u socotay magaalada ma jirta halkaas jirta wada kale qaldan baad u tilmaamaysa waxa rabtaa inuu dhumaa rabtaa bahraja waa qof la marin habaabiyay meeshii meel aan ahayn loo diray waa la khaliifay waa yahay waman وليت الشعر ماذا يقول النشاشيبي محو دهيا ومن محو أرنيا قد لا يقتر إنه كوكسومه ببرهجة كلامي هذا الكيس ما ضلوا فين تيسا بكلام الزائفوي هذا الكيس اكسباير كاوي أما وحو أرنيا عدل بهم عن الجادة إلى غيرها وضد الصح لا أنتو كل حي ودخل دل حي هذا الكيس باطل كاه وايه في من أحد عسى الله أركي أن يكره التشهد في الصلاة لقب يا إنه أتحيات كصلاة ما إنكروا إلى أتحيات والله ما باهنا أو كان على الحيدي ama haweeneyda dhiig ku dhacay inuu ku inkiro tarka salaati wa soom maxay salaadii soonka uga tagaysaa inuu yiraahdo oo sababta maxay tahay fi haydaha markay dhiig ku jirto qofka dumarka salaadii soonka uga tagaysaa inuu inkiro bidacwa isagoo ku aan sheeganaya an Allah ta'ala ilaahay lam yadhkur tashahhud fi al-Qur'an quraanka itahaadka lagu ma sheegin marka itahaadku sax maaha maadaama quraanka lagu sheegin musa yiraahdo وإنما ذكر القيامة وإنما ذكر waxa lagu sheegay quraanka al-qiyam wa ruku' wa sujuud faqad inta waa la sheegay salaada loo taagan yahay salaada la rukuuc salaada la sujuudayo faqad intaas quraanku sheegay laakiin wax kale ma sheegin tashahhudkani waxa taxaadka quraanku ma sheegin وأنه تعالى لم يسقط كما ردين في القرآن dhexdiisa الصلاة والصوم عن الحائض quraanka laguma hayo qofka dumarka ah haday dhig qabto salaadii soonka inay ka tagayso quraanka kuma hayno فالواجب عليها waxa ku waajiba al-qiyam bidalika inay u qonto soonka iyadoo dhig qabto soonto iyadoo dhig qabto tukato sida inuu ku doodo musa yiraahdo bulay faali waafaquna hada qolatan nashaashibi raga isaga ku dagsoomay raga ninka nashaashibi yiraahdo iyo raga ku kadsoomay oo warkiisa raacay wuxuu leeyahay waayahay naam faali waafaquna ma ku raacayaan hada al-munkara fi inkari munkarka ma ku raacayaan في إنكار مركك ما كون راعي سوى منكر ما كون راعيا أم ينكرون عليه بذلك بس واكو إنكريا أم ينكرون عليه ذلك بس واكو إنكريا وحورني ورصح ما وح شيكت يا وحول القرآن قال وشك أرنتم معها وحديث النبي وعلى قاضي فإن كان الأول مده هذا أرنتم تهاي وإليهين ودا ديجو كودعي ما سومي سوا مارتي وأنا تكنيسا تحياتك لو مشي القرآن لو مشي تحياتك سلامك مشيره doodada haday saa ku dhisnaanayso sida nashaashiba wato kale weey ya mima la wadaalika arrinkaasna mima la narju waxana ka rajeynay weey faqad dallu way dhumeen dalaalan baciida muditaan fog bay dhumeen wa kharaju waxay ka baxeen aan jamaacada muslimiin وين كان الآخر تكله هدي تاي أي ليه الماء قرآنكم مشي الحديث كالنبي على الشيء تحياتك صونك إني تشوفني في الصلاة إني حديث كالنبي على الشيء قرآنكم مشي هدي ساكو دوران وقفك بحاجة بدل الشيء وقلدية مركز لبضي بكسر دعين بلي مركز وين كان الآخر كالها هدي تاي فقد وافقوا ويوافقين وأصابوا ويأسيبين فما ردوا وحي رديا به سجع عن المنكر قفك عن منكرك waxaa munkarka ay radiyeen fawradadna ala nashaashibi taas anaguna nashaashibi ku radiyayna waqad bayyana laka wajha dalika arinta wajigeedana waa ku cadaynay faxadaari guleeyay ka digtoono hadaari ya ka digtoono guleeyahay ayuha almuslim qof iyo muslimka hay antu xaawila inaad isku daydid fahma quraanka fahmidiisa mustaqilan adoo ka madax banaan aan sunnaha nabiga quraanka nabiga sunnihiisa adoo ka madax banaan inaad tiraahdo quraankan fahmaya iska ilaali fa innaka adigu lan tastadiica awoodi maysid dalika arrinka wala kunta fi luqati sibawayhi zamanihi hatta luqada carabiga inaad noqoto sibawayhi waqtigiisa jooga inaad tahay ka soo qaad sibawayhi waqtigu joogay adiguna sabankan inaad tahay sibawayhi waqtigiisa oo kale inaad tahay yaani waxa weeye nin hadda oo kale sidii sibawayhi ku ahway sibawayhi suu zamankiisa ahaa adigu hadda inaad sibawayhi oo kale waqti sabankan tahay ساسو كلا يسو أرق بولي حتى هدا تاي بولي هذا سنة كتير قرآن ما فهميشيد بولي واي فإنك لن تستطيع ذلك سيدا أود ميسيد ولو كنت أبا هاتي في اللغة حق لغة عربية سيبويه زمانه سيبويه وقت يسيد شوقا بعد هاتي وهاك قاضو المثال أمامك مثال كهرت هذا يلا قاضو فإن النشاشيبي هذا نك أنا كهر لي النشاشيبي اللي هذا وأرانا قال كي النبي لقوا مصر لنا كان وحوها من كبار علماء اللغة علماء اللغة العربية كوا وين في القرن الحاضر قرن كان لتشوجه رجع اللغة بيوها فأنت أدعو تراه وهذا كيسا قد ضل إنه رمي حين اقتر مركو كوكت سومي بعلم أقوانتي في اللغة أولها اللغة العربية أقوانت أولها بكوكت سومي كوال رمي وين واي هاي
walam yastacin mana uu kaalmaysan calaa fahmi alqur'aani bisunna qur-aanka fahmidiisa sunnaha uma uusan kaalmaysan maxaa yeele aayadda markuu arkay waxaa rabay inuu xadiiskii nebiga u noqdo iyo wixii lagu fasiray markaasuu arki lahaa aalinka nebiga axaadiiska meesha ku taal buu arki lahaa nebiga aalkiisa inay nebiga ka sugnaatay aalkiisa in lagu salliyo markaasuusan wareerkaan galin waay walam yastacin ma uu kaalmaysan calaa fahmi alqur'aani bisunna qur-aanka fahmidiisa sunnaha uma uusan kaalmaysan nebiga waay qur-aanka lagu fasiraa qur-aankana xadiiska nebiga lagu fasiraa aqwaalu saxaaba lagu fasiraa aqwaalu taabiciin saasuu ahaa bal iska badaaya inahu ankaraha waa inkaray kamaa carafta saad soo ogaatay saad garatay wey walamhilatu tusalayaashu calaa maa naquul waxaan leenahay kaiiratan way badan tahay jiddan aad bay u badan tahay dad badanoo saa ku hallaabay laa yatasicu uma waasac noqonaya almaqaama meeshaan taaganahay lidikriha sheegsheegeeda inaan sheegno lidikriha sheegitaankeeda oo kitaabku kitaab lasoo gaabinayo wey maa kitaab lasii dheeraynayo maha wey wa fii maa sabaqa wixii soo hormaray kifaayatakum filaasha kifaaya ku sugan wallahu almuwafaq ilaahay baa waafajiya subxaana wa tacaala waafajinta iska leh waaya halkanna wuxuu ka gelayaa faa'iidadii saddexaad waaya laba faa'iidaan soo marray faa'iida hore laba faa'iidaan soo marray halkan wuxuu ka hadlayaa masale la yidhaahdo nebiga waxaa sugnaatay inuu xadiis ku oranayo xadiis waa badan xadiis sayidka sheegaysa anaa sayidu waladu aadam nebi aadam waladkiisa anaa sayid u awey xadiis waa soo aroray laakiin riwaayaadka atixiyaadka ku jira salliga nebigu quul uu dhahayay hal mida oo sayid kuma jirto waxyaabo kale alfaada kalaa ku jira kelimatu sayid kuma jirto taasaa hadalka jira marka waa sugnaatay nebigu inuu sayid walad aadam yahay intuu garabkii ruday markii loo keenay hilibkii waa tul anaa sayid waladu aadam xadiiska saxiixa oo muslim ku yaalay marka kelmadda sayid inuu nebigu sayid uu yahay nusuus badan baa ku soo aroortay laakiin markii laga hadlayay atixiyaadka iyo salligaan iyo arrimahan markii laga hadlayay laguma soo darin ma ku dari karaan soo ka dayn karaa yaa waxaadii cibaadada markay taan oo kale tahay cibaadada markay ku dhex jirto tawqiif weey waxa fiican inaad waxa rabaa in la iska baaro waxaan ma lagu daray mise laguma darin waay taasaa laga hadlaya markan alfaayatu thalitha faayada saddexaad wayaraa wuxuu arkaya alqaari qofka wax akhriya aydan mar kale annahu laysa fi shay minha axaadiistii salligahayd inuu soo maray annahu laysa fii shayna inuusan ku sugnayn oo minhaa ka mid ah axaadiista aynu soo marray oo salliga ahaa lafdu asiyaada sayidnimo sayidka calaa sayidina iyo waxa kuma jirin walidaalika sidaa dare ikhtalafa almutaakhiruuna dadkii mutaahiriinta waa isu khilaafeen fii mashruuciyati ziyaadatiha inay mashruuc tahay in lagu ziyaadiyo fi salawaati alibraahimiya salliga ibraahimiga ah nebi ibraahim lagu soo darayo waxaa la salawaatu alibraahimiya la yidhahdaa midda nebi ibraahim kamaa salita calaa ibraahim lagu darayo waay salliga ibraahimiyada ku jirto in lagu soo daro iyo in kale ay mutaahiriintu isku khilaafeen walaa yatasacu lmajaalu majaalka aynu ku jirana inooma waasac noqonay alaana hadda linufasila alqawla hadalka inaan faahfaahino fii dalika warka waayahay iyo wadikru in la sheeg wadikru man dahaba ilaa cadami mashruuciyatiha iyo inaan magacawno sheegno dadkii ku hadlay man dahaba dadkii ku tegay ilaa cadami mashruuciyatiha inaysan mashruuc ahayn اتباعا يدل الراعي لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم نبي تعليم الكامل لأمتي أمتي تعليم كامل كأوسية حين سئل مركي لو عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كيفية الله صلى عليه شيخ ما يشوف شربات فهمي سن إنه لا يصلي لو صدر ما يصلي الحياة ساس أصع عليه يسوي هذا الكيس فأجاب واتشي ساسوي فأجاب آمرا بقوله مركز وحو كنت جواب قول كيس قولوا اللهم صل على محمد ولكن أريد وحن دونيا هل كان كعلي اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه فأجاب النبي وحو كنت جوابي آمرا بقوله سوى ضدك أمره قول كيس قولوا وافعل أمر وي قولوا نهاية اللهم صل على محمد هل ميدو كلاس سقال بعنود الشيخ هذا تضبط سيقو إنه قري هو كلام أجران انت سيقو سأرورتي نما سيدكم تجلو واي تاسو أمرنا ويو النبي وحلي قولوا نهاية وأنا كتير مركز سيدكم اسكداي ولكن أريد وحان دونيا أن أقول إن صهره إلى القراء الكرام ذاتك كتاب الآخر السنة أو كرامته وناكسن أهل الكرم كأه وأمانة ذاتك وحبرنية هنا ميشان رأي الحافظ من الحجر العسقلاني كتاب فتح باري يا شيخ الإسلام ابن الحجر العسقلاني معروف وي في ذلك أرنك باعتباره أحد كبار العلماء باعتباره يسوي اعتبار سن أحد كبار العلماء الشافعية علماء الشافعية كوا وين إنه كم دياك كوا وين إنه كم دياك الجامعيين يسوق يستي بين الحديث والفقه حديثك النبي سكويها واركتي فقهنا ساس سكويها بي واي فقد شاع وحا فافي لدي متأخرين الشافعية
متأخرين تودا أكتودا waxa ku faafay ladii bimacna cinda weey khilaaf hada التعليم النبوي الكريم khilaaf ka jira tacliinta nabiga kariimka ah maxaa sayidka lagu soo dari waayay meeshan فقال الحافظ وحو يري محمد بن محمد الغرابيبي هذا الشيخ أنا ابن حجر لا جوجي جري marka isaga inooga warinaya وكان وحونا هابو يري ملازم لابن حجر بلا جوجي جري لازم جري قال وحي رحمه الله والله نحرسته ومن خده قدكيس ما نقلته كسو رري بو الشيخ دحايا وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية قال الظاهرية كتبت إلالية بنا كمد yahay hoos buu ka sheegay hadalkii ibn xajar uu tilmaamayo oo wuxuu tilmaamayaa mas'aladan iyada ah oo ku saabsan waxaan ku raahdaa sayidka in lagu daray martii atxiyaadka saliga lagu qareeyay ama adkaarta ama saliyaashii nabiga qool uu yiri oo dhan inta riwaayad la soo aroray hal mid oo kamid ah sayidku ma jirto wasuila waxa la weydiiyay buu yiri ay al-haafid ibn xajar amta Allahu bi hayati noloshiisa ilaaha ugu raaxayay عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مارتي صفة صلاة النبي في الصلاة عن صفة الصلاة صلاة الله سيد الله صلى صفة هذا على النبي الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحداثة أو خارج الصلاة أما صلاة بناك يدو لقيت شوقه أما صلاة الحداثة أما صلاة لقيت بحسين النبي الله صلى سواء واحد اسكم ده قيل بوجوبها صلوا واجب اللي يراهدو أو نديتها إن اللي يراهدو واسنة إلا ذاتك أوراني واسنة يكون واجب ده الله كلا مركا كلا صار من يدون تنتبهها هاتي هل يشترط فيها ما لو شرطيا أن يصفه النبي أن يصفه قفكن كصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة والسيد يراهدو كان يقول مثلا إنه يراهدو اللهم صل على سيدنا محمد إنه يراهدو أو على سيد الخلق إنه يراهدو وعلى سيد ولد آدم إنه يراهدو أو يقتصر على قول موسى وحو كسو قابسني هذا الكيسي اللهم صل على محمد إلهنا محمد بن حريصه وأيهما أفضل كيبا فضل بدن إن سيدك لو قدر إن لقته الاتيان باللفظ السيادة إن لا يماده لكونها صفة ثابتة له لكونها أهانشي هذا صفة ثابتة صفة سقناتي له النبي أسقناتي سيابا أوراني أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أو عدم الاتيان به إن لا إيمان لعدم ورود ذلك في آثار تهدى عن الشيخني كما سأروني كلمة السيد كما سأروني جواب القاضي فأجاب رضي الله عنه مركز كجواب ابن حجر جوابته ابن حجر فأوران دونا نعم الاتباع نعم بيلا ابن حجر بأورانية نعم الاتباع إلا الرعاه الألفاظ المأثورة أرجحوا الفاضي لصور إلا الرعاية رجحان بي واكي هذا ابن حجر مركز سلقة مركز أتحياتك لو قد حقرني مركز سانو كلا سلوا آخرني كما جرت كلمة سيدنا كما جرت ولا يقال لما يراهدو لعله الله أركي ابن حجر wuxuu diidayaa meel uu nabigu kelmadda inuu dadku galiyaan wala yuqaalu lamana yiraahdo bil la'allahu la arkay rasuulku taraka inuu uga tagay dalika sida tawaaducan kibir la'aan minhu xaqiisa ka ahaatay yey dadku sayid inta isku sheegtay kumoodin xooga inaad amaan ula jeedid tawaadu buu uga tagay nabigu in la yiraahdo arintaasuna ma banaana nabigu waxa la wixii xaq loo soo dhiyo hadaa marka xadiis nabigu diintiisa uu qariyay dadka qofkii saas kale nabigu tawaadu buu uga tagay yiraahdo dambi buu galay ayad quraan kamid ah waxay dhahaysaa عائشة waxay tiri haduu nabi maxamed quraanka wax kamid qarin lahaa wuxuu qarin lahaa aayada ku jirta suuratul ahsaab wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu haqqan takhsha falama qada zayd minha wa daran zawajnakaha zaynab qisadeedii haduu aayad quraan kamid qarin lahaa aayadaas qarin lahaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka dhigay qofkii tawaadu uga tagay qof nabiga diinta qayb kamid inuu nabigu qariyay waay كما لم يكن وايك نعم الفاظ إن الرعايا فل بدن بي كما لم يكن يقول عند الذكر صلى الله عليه وسلم سوس النبي قرن المكو ورناي صلى الله عليه وسلم أمة عند الذكر صلى الله عليه وسلم كما لم يكن يقول سوس ورنج عند الذكر صلى الله عليه وسلم مركي la sheego markii isaga la sheego umadiisu ay sheegto صلى الله عليه وسلم nabigu ma dhihi jirin وأمة مندوبة umadiisna waa loo sunnay ila anta qula dalika sida inay tiraado kullu ma dukura markii nabiga magaciisa la sheego meeshan wuxuu tilmaamayaa sida inaga waajib ka dhigay nabiga magaciisa daa maqshina ku salidid baa nabiga looga dhigin bulay laana naqul waxaan oran law kana dalika sida haday ahaan lahayd raajaxan la jaa waxa ka iman lahaa saxaabada la iman lahaa waxay oran jireen marka nabiga magaciisa sheegnaa nabiguna waa salin jiray thumma ani taabiciina ayaa la iman lahaa wala naqif ismaana kurtaagin shay min al-athari waxa hadiista kamida ana hadi min saxaabada qof saxaabadii kamida wala taabiciina lahum dadkii raacay saxaabada oo taabiciinta ahaa qaal dalika sida inuu yiri مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك وحي كسو أروري بدنان توديض الله لقبه وهذا إمام الشافعي على الله درجته كسوان إمام الشافعي درجته الله كوريا له وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وضدك وقبض النبي إنه تعظيميه قال في خطبة كتاب قدسي وحكيري الذي كتاب كان هو معتمد أهل مذهبه مذهب اعتمادان اللهم صل على محمد إلى آخرها سيدنا مشيق
ما أداه إليه اجتهاده اجتهاد كسب حكوتك وهو قوله كلما ذكره الذاكرون اجتهاد كانوا كدري وحول يتنافض لبنصاص كانوا كسودر إريان كسودر صدي وأرانا أيه فضلك أقبض وحال اللي يرهده اللهم صل على محمد مركي الله دمايه إن اللي يرهده لو قدره إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده اجتهاد كسب قارسيي وهو قوله هذا القول كسيوي كلما ذكره إلهي با سلقاس النبي قال له قد عيني كلما ذكره أنت حسان الذاكر كو حصايا وكلما قفل أنت إلى وسين عن ذكر نبي حسكيس القافلون ما ركت ضميرك ربي با لو عليا هذا النبي قال لو علن كراوي وكأنه استنبذ ذلك إنه كسو قاتل من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه حديث كأنه كسو قاتي سبحان عدد خلقه marka meesha damirka waa inuu celin Allah weey kullu maxay ahayd kullama dhakarahu dhaakiruna wa kullama ghafala an dhikri al-ghafilun wa kaanu istamada dhalika min al-hadith sahih alladhi fihi subhanallahi wa adad khalqihi inuu ka soo qaatay baa mooda faqad thabata waxa sugnaaday annahu sallallahu alayhi wasallam hadith inuu gal dushiisa ha ahaatee qaal inuu ku yiri li ummi al-mu'minin mu'miniinta hooyadood waraa wuxuuna arkay akthar inay badisay at-tasbiiha wa adalatu ayna dheeraysay tasbiixda لقد قلت وحانيدي بعدك جدالك زينب ما يهيد صباح انت مساك فريسي ورد ودي والنبي سو نقday wuxuu yiri ila saaka waxaad wardi akhriistay afar kelmadood dhahay baa ka xoog badan bi nabiga sallallahu alayhi wasallam laqad qultu waxaanidi بعدك جدالka kalimaati kelmado law wazinata hadii la loo miisaamo bima qulti wixii aad tiri maanta oo dhan dhahaysay law wazinatu inuu ka miisaan cuslaan lahayd fadakara wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam hadalka hayd maartay subhanallah adada khalqi rida nafsi wazinata arshi midada kalimaati أفرتها كلمة وكان صلى الله عليه وسلم يقول يعجبه من عجب قليه الجوامع كل اللي يسجي من الدعاء دعاء كل الجوامع له أيوة النبي كش على دعاء ترى بدن هذا الكومن ومعنا نحر وين حبار سنبو النبي كش على صلوات الله وسلم عليه إلا وحب لي وحب اللي يسي جوامع الكلمة اللي يسي النبي صلى الله عليه وسلم عليه والله سبحانه وتعالى أعلم.